بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدان لا socono jiritaanka dawladnimada waxyaabaha aasaaska u ah waxa kamid ah ilaalinta shuruucda la wada dejistay ee dadkaasi ay wada leeyihiin sidoo kale waxa aasaas u ah ilaalinta waxyaabaha wanaagooda la isku waafaqsan yahay ee common good-ka loo yaqaan wargeeska caanka ah ee la yiraahdo foreign policy ayaa waxa uu qoraa toban waxa uu yiraahdo waxa lagu gartaa dawladaha baaba'aya ee burburaya ee failgaroobay ee guul dareysanaya waxa kamid ah tobanka qodob la yiraahdo the big men get greedy in inta dadka u talisa ee elite-ka loo yaqaan ee maamulka sare halka sare joogta ay dalqada wax ka aragto oo hunguri mooyaane aanay nolol kale eegin oo aanay wax kala arag waxa uu tusaale u soo qaataa wadanka Masar marka uu qodobkaasi ka hadlaayo oo madaxweynahoodii hore ee Xusni Mubaarak iyo qoyskiisu 70 bilyan oo dollar ay maxaan ku raahday urursadeen intii uu xilka hayay oo shaqada hayay sida uu 70 bilyan ku urursadana waxay ahayd inuu dhaqaalihii iyo fursadihii ka xanibay dadkii kale ee muwaadiniinta ahaa inay fursad ay ku shaqeystaan helaan fursad fiican ay ku ganacsadaan ay helaan laga baloogareeyo laga xidhay inay suuqa si fiican ay u soo galaan ila ninkii isagiiba shuruucdii iyo wadankii iyo dhaqaalihii iyo wax walba gacanta maxaan ku raahdaa doonay inuu ku dhigay maanta habka iyo nidaamka dhaqaalaheena loo maamulaa waa mid taa u sansaan eeg waxa muuqata in dhaqaalaheena uu ku socdo nidaam la doonayo inaanu shacbi weynuhu ka faa'iideysanin ee si gaar ah dad gaar ah iyo in yaro gaari ay uga faa'iideysato waxaan la soconaa dhawaan wadankeena in shidaal keentay company weyn oo la dhaahdo Travagura company-gaas iyo taariikhdiisa iyo sidoo yahay ma doonayeen inaan ku dheeraado waxyaabaha ay tahay saxaafaddu inay baadhaan iyo shacbiguba inay baadhaan ay ogaadaan company-gaasi maxkamad ayaa waxay ku heshay inuu company criminal oo dambiila yahay oo ka shaqeeyo waxyaabaha ay ku heshay ay kamid ahayd inuu sunta waxyaabaha toxic ah ee maxaan ku raahdaa wadamadu aanay doonin wadankooda in lagu aaso inuu intuu ka shaqeystay wadan miskiin oo Afrikaana uu maxaan ku raahdaa ku soo aasay si isagu lacag uga sameeyo waxa kale oo Amnesty International ay ka qortay warbixin 232 page ay company-ga ka qortay oo ay kaga hadlayso deeqada iyo uskaga ganacsi ee uu company-gaasi ku jiro waxyaabaha ay warbixintaasi ka hadashay kamid ah in company-gaasi uu ka faa'iideysto faqriga iyo dhameystir la'aanta shuruucda wadamada faqiirka ah waxa runtii wax aad iyo aad looga xumaada company caynkaas oo sumcadiisu sidaa tahay in maanta wasiirkeeni ganacsigu uu dabaaldego amaano uu yiraahdo ay la weynaato company-gu inuu company weyn yahay ma taariikhdiisa aanu akhriin madana kala laga leeyahay waayo company-gan waxyaabaha kale uu caanka ku yahay ee warbixinahaasi ku jira waxa kamid ah inuu musuqmaasuqa iyo maxaan ku raahdaa in waxyaabaha noocaas uu caan ku yahay waxa run ahaantii wasiirku marka uu arintaasi ka hadlayay ee uu company-gaasi doonayay inuu inaga sharaxo oo dadka uu fahamsiiyo kama hadal company-ga heshiis ay la galay kama hadal haamaha uu leeyahay waa la inoo dhisayaa iyo nooca yihiin iyo qiimaha ay ku kacayaan kama hadal marka aynu xayeysiinay ee aynu nidhi ganacsi noocaas baanu furanaay company-yada dabadda iyo kuwa guduhuba ha soo dalbadaan waxaad moodaa in shuruucdii oo dhan laga talaabsanayo waayo shuruucda wadanka u taala iyo qawaaniinta inoo taala sida ay garyaqaanada maxaan ku raahdaa wadankeena ugu caansan sheegeen waxa ay dhigayaan si cad marka company caalami oo wadankeena imanayo sidee buu ku imanaya dariiqii baa loo maraya daraasadii la sameeyay meeda waxa la yaala waxa soo dhan intoo la iska indha tiray ayaa wasiirku inoo sheegay
in shidaal badan maxaan ku dhahdaa ay keeneen ay ku soo shubeen shidaalka uu sheego iyaga leh shidaal inagu aan leenahay ma wuxuu dhahaa ma dhisi doonaano lacagtooda way la noqon doonaan sida uu la noqon doonaan inoomu sheegin waxa ka muuqata daahfurnaan iyo madow iyo in qol madow maxaan ku dhahdaa heshiisyo noocaas ah oo laga yaabo wadanka in lagu adhax jabiyo in la galayo oo la wado xaqiiqooyinka yaalaynu ognahay waxa weeyaan koow shirkadaasi inaan cid heshiis aynu ognahay oo lala galay aanu jirin waxa kale oo iyaduna xaqiiqo ah in habka socda ee shirkadan iyo heshiiskeeda ku saabsan aanu ahayn run ahaantii mid daahfuran waxa iyaduna xaqiiqo inuu dhibaato u geysanayo dhaqaalaheennii gudaha iyo ganacsatadeennii yaryarayd ee muwaadiniinta ahaa ee cashuur bixiyaha ahaa ee marka ay dhibaato timaadaba haddana dib loogu cararo way sababtaa inaga ganacsatadeennu waxay kaga duwan yihiin ganacsatada kale ee adduunka ma aha kaliya ta cashuur bixiyayaal sidoo kale inaga donors bay nooyiin markay masiibo timaado waa meelaha aynu ku baxsano waa halka aynu tagno in dadka la ilaaliyo waayo waana dhaqaalihii wadanka dadkaaga la ilaashadaa dhaqaalahooda ayaa la ilaaliyaa waxaan ku taleenaa wadankan in laga daayo inaan hunguri lagu xukumin inaan aqligeena iyo aragtideenu aanay dalqada ku soo ururin maxaan helayaa inaanay ku soo ururin in aragti dheer laga fakaro war wadankan sidee loo badbaadiyaa dhaqaalihiisa loo dhisaa dadka nolol loogu sameeyaa sababta madaxda loo yahay taa weey taariikhda iyo dunida iyo waxa soo maray waa in lagu cimro qaato maanta xusni mubaarak 70 bilyan buu urursaday sida wargeyska ku qoran maanta lacagti maada qofku waa inuu xisaabtamo oo uu isweydiiyo legacy-ga iyo taariikhda uu ka tagay haddii dhaqaalaha la xidhxidho oo dadka loo diido inay si xor ah u ganacsadaan oo dadka loo diido qofku inuu fikirkiisa iyo dhaqaalaha yar uu haysto uu maxaan ku raay si xor ah ugu tartamo oo meel kasta cid gaar ah loo xidho oo meel kasta la yiraahdo maxaan ku raahdaa monopoly baa la sameeynaya dhaqaalaha monopoly-gi wuxuu abuuro wayna naqaanaa waa halka ay ka bilaabanto burburka ummaduhu waa halka uu ka bilaabmo khilaafka iyo isnacu xukuumadda iyo wasiirkaba waxaan u soo jeedinaynaa in haddii heshiis xalaal ah oo ummadda dan u ah oo maxaan ku raahdaa dhaqaalaha dan u ah ay shirkadda la galeen ay soo bandhigaan oo ay shacbiga iyo dadweynaha iyo baarlamaankaba la wadaagaan haddii aanay taas jirinna inay iska daayaan suuqa madow ilaan waaba dawladnimadii bay hayaan oo ummadii oo dhan baa la yidhi waxoodii maamula waa hanyaraan inaad markaa wax noocaas oo kale aad ku soo noqoto aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu